السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدق كواه نوصان دادكنا هنونية. دمان دادك الصومالية دا برنامج كقفاعو كدقيسانا يا راديو بورمي. كان دعوانا يا صومالي كنديان تي في دادك برنامج كمير والبا كدقيسانا يمانتو أمانين سلاسة bisha Disembar 2025 waxa aan rabaa dadka inaan xaqiiqda dhabta ah sida ay tahay kulankii odayada beesha gadabursiga madaxweynaha Soomaaliland aan uga warramo dadka iyadoo waxyaalo fara badan iyo warar kala duwan oo isdhaafa la wareejinayo waxa aan rabaa warka xaqiiqda sida ay tahay inaan idin gaarsiiyo dadkuna markuu hadlayo warka cidda uu ka qaadanayo waa inuu hubiyaa wa in jaakum faasiqun binabayin fatabayyanu bi ilaahaydi warka la cadeeyo way waxaan rabaa odayadii dhaqanka ee ay wada kulmeen madaxweynaha maanta waxay odayadu garnaqsadeen oo ay madaxweynaha u sheegeen beesha gadabuursi inay horeba beesha ciise 24 saacadood kaga baxay yidhaahdeen magaalada saylac hareeraheega lughaye intaasoo dhan waqtigii musabbix wax raaligelina aynay ka bixin iminkana go'aan iyagu soo qaateen ay meel walba ka leeyihiin xitaa in la wada degan yahay aanay ogolayn odayadii go'aankii ay madaxweynaha u sheegeen wuxuu u sheegay inuu tala soo weydiiyey madaxweynaha mudane Ismaaciil Cumar Geele uu ka codsaday in arrinta dhexdhexaad laga galo dabadeed dadka saylac ee waliba ah dadka deegaanku arrintan ay ku qabsadaan odayadu gadabuursi dhammaantood iyaga oo midaysan oo arrintan xitaa ka warramay ninka gudoomiyaha gobolka saylac imika haystaa arrintaasi uu ka mid ahaa dadkii u ololeynayay 24 saacadood kaga baxa waxa go'aanku yahay inaanan lagu qabanin ay go'aansadeen iyagu oo deegaanka degan haddana aan nagala tashan odayadu waxay warka ku cadeeyeen inay arrinta iyada diidan yihiin wararka sheegaya Jabuuti baa lagu wareejiyay Jabuuti baa kan la yiri waxaasi waxba kama jiraan waanigoo tafaqatiraha Somali kan TV aan radio Borame Xamed Suldaan Ali Cilmi oo barnaamijkan idinku sii deynaya xaqiiqda dhabta sida ay odayadii iyo madaxweynuhu ku wada hadleen